الحمد لله ناصر السنة بأهل السنة، والصلاة والسلام على من أمرنا بالتمسك السنة، وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في العقيدة، إلهي سبحانه وتعالى هايدن بركايو. waxaan rabaa halkan inaan su'aalo u diro nimanka shiicada ah ee beenta badan leh. su'aalahaasi waxa ay ku saabsan yihiin raziyatu yawm al-khamiis. raziyatu yawm al-khamiis macna kooban haddii aan ka bixiyo waxa weeyaan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam maalin khamiisa oo aad u xanuusnaa ayaa waxaa dhacday in uu nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii ku yiri ii keena kitaab amba dawaad iyo sidaan wax idinku qoro. markaasay maaragtay saxaabadii dhexdoodii iskhilaafeen. qaar baa yidhi maxaan ku idhaahaa war nebigu uu xanuunsanayaaye bal hawshan u yarkaadiyo dib u dhiga. qaarna waxay yidhaaheen waan u keenaynaa. hawshii baa la isku khilaafay. kadib nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maadaama ood iskhilaafteen iga taga buu ka yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam. idan haddaba waxa aan rabaa nimankan shiicada ah waxay aad u dhaleeceeyaan oo aad ay ugu caayaan rasiyadan ama arrinkani saxaabiga weyn ee jaliilka ah khaliifkii labaad ee ummadda cumar ibn khataab radiyallahu ta'ala anhu ardaah ayay aad iyo aad ugu caayaan. bal waxay yidhaaheen waa gaal oo amarkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu diiday. waxa weeyaan haddaba waxaan rabaa inaan shiicada soomaaliyeed khaasatan weliba ninkan beenaalaha ah ee maalin dhaweyta lala doonay ninkaasi waa nin raba magacdoon iyo maaragtay ishhaar iyo inuu soo muuqdo uu soo caan baxo iyo nin doonayo weeyaan. qofka bini aadamka markuu xaqa u jeedo ayaa lala doodaa, laakiin markuu xaqdoon ahayn marka aad aragto ama uu yahay nin rabo inuu dadka wareeriyo ama ummadda madaxa uu ka qaado waxa weeyaan waa la cajzi geliyaa oo waxaa la weydiiyaa su'aalo uusan ka jawaabi karin. طيب marka waxa weeyaan su'aalahan waxay khaas ugu socdaan ninka faarax la yiraaho, waana atahadda inuu ka jawaabo waana huba inuu ka jawaabi karin. raziyatu yawm al-khamiis nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri ii keena kitaab. kadib saxaabadii qaar baa diiday. qaarkii diiday waxaa ka mid ahaa cumar ibn khataab radiyallahu ta'ala anhu ardaa. waana handaan u dhiga hadalka sidooda. waxaan nabiga calayhi salaatu wasalaam uu qorayay ma arrin waajib ah baa misolayte waa arrin aan waajib ahayn. su-aasha koobaad waa taa. haddii aad ka bilowdaan ama aad tidhaahdaan waa arrin waajiba oo asal ahaan amarku wuxuu keenaa waajib qaacidadii usuuliga ahayd lagu dul dhiso, طيب waan qaadanay. su-aal labaad baa ku xigto. su-aasha u horeysa waxaan nidhi arrinkan ma waajib baa? nacam haddaad tidhaahdiin idan su-aaluhu way sii soconayaan. maya haddii aad tidhaahdaanna su-aashu intaasay ku joogsanaysaa. maxaad ku haysataan cumar ibn khataab baa meesha imanaysa marka. idan inay uu joogsanayn uu su-aalaha sii wadayo oo uu odhanayo nacam waa amar buu ahaana waan hubaa. idan haddaba waxa weeyaan su-aasha labaadna waxay leedahay nebigu calayhi salaatu wasalaam shayga amarka ah sow ilaahay kumuu odhan yaa ayuha arasuulu balligh maa unzila ilayka min rabbika wain lam tafcal famaa ballagta risaalatah wallahu yacsimuka min annaas. idan nabiga calayhi salaatu wasalaam shaygii waajibka ahaa ummaddiisa muu soo gaadhsiiyey mise uu ka khabeeyey? haddaba su-aasha labaad ee halkaa joogto ayaan maaragtay jawaabteeda ka rabaa. haddii uu yidhaaho nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu soo gaadhsiiyey shaygii waxaan leenahay haati ken aaway halku naga soo gaadhsiiyey shayga maxaan ku idhaahaa raziyatu yawm al-khamiis dhacday. haddii uu yidhaaho nama soo gaadhsiin waxa weeyaan ceeb baa meesha ka soo baxaysa oo ah nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu xaqii khabeeyey. midda labaad waxaa imanayso in ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu gafo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala la caayo ayaa imanayso. qaabkay u imanayso waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala nebigiisa wuxuu ku yidhi balligh maa unzila ilayka min rabbika. shaygu hadduu waajib yahay ilaahay wuxuu ka yidhi nebi muxamedow ummadda u fidi. idan ilaahay subxaanahu wa tacaala shaygii uu ka yidhi nebigiisa fidi uu nebiguna khabeeyey walciyaadu billaah ayuu ilaahayna raalli ku noqday uu ka aamusay. idan waxa weeyaan nebi maxamedna xaq buu naga khabeeyey waajib ahaa
ilaahayna maaragtay maxaan ku idhaahaa nebi maxamed muu baraarujin oo uu ka aamusay ilan ilaahay subxaanahu wa tacaala nebigiisu hal mar hadduu maaragtay maxaan ku idhaha khata ka dhaco uu baraarujin jiray ilaahay subxaanahu wa tacaala nebi maxamed muxuu ku yidhi cabasa watawalla an jaa'ahu alacma wamaa yudriika lacalahu yazakka ayib waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala nebiga isagoo sidaa u baraarujinayo haye oo sidaa maaragtay maxaan ku idhahaa mar kastaba maaragtay maxaan ku idhaha u qabanayo oo le maxaan ku idhaha nebi maxamedow maxaad arrinkaa u samaysay yaa ayuha nabiyu lima tuxarimu maa axala allahu lak ilaahay baa subxaanahu wa tacaala sidaa ku leh ilaahay haddaba xaqii miyuu ka aamusay mise uu caddeeyey haddii ay yidhaahdiin uu caddeeyey aaway halkay ku taallaa keena ayib su-aasha labaad ee meesha taalla iyadana waxa weeyaan cali meesha uu joogee muxuu nebiga calayhi salaatu wasalaam ugu keeni waayey isaguna miyuuna amarka nebiga diidin haddaad tidhaahdiin uu fuliyey amarkii uu fuliyey aaway haatuu burhaanakum halkee uu ku fuliyey waxaa imanaysa haddana maxaad u kala qaadeen cumar iyo cali لأن علي بقى كاني واي معصومنا أها سؤال اللبات ماشا ما ركت محن كلها كجرته أو إيضا ما ركتي طالة عمر وحو يري يكوح دي الرعسني حسبنا كتاب الله علي طرف كي كجر علي طرف كي كجر علي هو أمصنا هدي أتراهدانا وحويا قاعدة ماشا إيمان أيسو والصمت علامة الرضا أمصنان توحا أيكو تستاشي قف إنو رالي كويه طيب إذن وحويا ندور رالي كأهين علي محا آموسي هدي أتراهدان هو عبسوني صوت كتبتي نكوتا الله علي ما ببقى واجيسي إذن أهوي ورميل جاي أرمهن وحويا مدة كله النبي عليه الصلاة والسلام أرنك وقريي هدي خبيي علد ما شك صباح سويجرت أرت تعود كو قالوا بيسان هدي هذا النبي محمد بقى خبي إذن وحويا هل كاد مرينا إنسان هدو شيء واجب أها هدي عندي بقصة نقول هذا الكيهرة إلهي سبحانه وتعالى قرآن كي سوحه كيري اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي طيب وحويا آيات دا كمال كدين تكهد ليسو ودينتو إنا لما يسترنتي كهذا الشيء أيها النبي عليه الصلاة والسلام لو سودجي إذن هدي الشيء واجب أها وحويا دينتينا لما يسترنتي لليه هاي شيء واجب كمحو أها أتشك شيئا إيسان سؤال شكل وحويا ماشا تال علي بن أبي طالب محو كيني وايي النبي عليه الصلاة والسلام محو كيني وايي دوادي إيا خطكي إساقنا محو كيني وايي ها محو كيني وايي إذن علي نميو كآموسين إلا إنو كيني أهيده محو إساقنا أغا آموسي وحويا علي عمر واحد كو هيسان علي وإن لغو قبطو لبدا قد واحد إذن فرن مجرتو طيب مدى كلا أو ماشا تالا وحويا أو ماشا كو جرتا إيادنا وحويا شيعادو سؤاشا أن ويدين إنه وحويا نبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب وحوكو يري مالنكي صلح الحديبية علي يوم وحويا ترتر بكير مقعيقا وقال دي مركي كو يراهين محمد رسول الله هي وإن ما ركت محنكو دا نغترتا هدي أد رسول الله هيتاها أنه كل ما بدك علمنين طيب نبي عليه الصلاة والسلام هدبا وقت قاسي علي ترتر أوكلها شيء جني تر أوكلها إلا ترتر على يوم مركو كيل مصح أو ترتر مركا أوكلها سو أمر معها وحو كتصي إذن علي أمركي النبي ميو ديدي مسمد ديدي كتبتي أنا ويكوت الله سؤال شو قدام بيسو أن ويديني يوحى أي تهي رواية ابن عباس باورينيا ما دام ابن عباس ورينينا ابن عباس إذنك أكتي نقال بوكي حي حدبا نقال رواية ديسة سيدي بعضو أقبال إيسان قرآن كينا وحا كجرته حتى ننفاسق وركيس هاده إن له بصنايو هاي إن له بصنايو أيا كجرته إذن هدبا وحويا أن رواية داسي وليمدي
nin gaal sidaad idinku aaminsan tihiin walciyaadu billaah saxaabada ilaahay gaalaysiinaya sidee baad u soo qaadanaysaa ood u xujaysanaysaa riwaayo nin gaala uu soo wariyey su-aashaana inaad ka jawaabto waa loo baahan yahay su-aalaha intaa la eg maxaad kaga jawaabaysaa faaraxow waxa ii dhiman oo ii soo socoto weliba beenaha aad gashayna waan caddayn doonaa dooda dhexdeeda insha allahu tacaala ninka magaciisa la yidhaaho sulaymaan ibnu ibraahim alqanduusi alxanafi ayaa waxaa tiri waa nin من أئمة أهل السنة والجماعة كاملة العدين دون بينها وأنا بوصل صعدا إن شاء الله تعالى إذا سؤالها لكن وحقارها شيء يسكت تقول دين كنا شيء هي كنا انسجاب إسكاشرة وكسر جواب سؤالها لكن ومعذرة فيديو جن ننكس أو مسلم أحقاط دعوة وحن ربع إنه جارسيو شيعة الصوماليين ninka faarax la yiraahdo waliba khaasatan inuu sii gaarsiiyo oo su'aalahaasi faarax uu ka soo jawaabo ayaan rajaynayaa wa salaam ya dhammaan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh